al-shabaabka maxay qaadaan lacago badan ayay qaadaan oo magacyo qurux badan u bixiyeen qaar waxay dhaheen zakawaad waaye laakiin zaka ma aha qaar kalena waxay u bixiyeen infaaq bay dhaheen qaarna waxa waaye maxay ahayd isbaaroon ayay ku qaadaan qaar kale tan waxay qabaa'ilada lacag ku soo qoraan oo baad ah qabiil hebel waxaan lagu soo qoray $100,000 inaa keentaan qasab ku soo aruuriya dadka masaakiinta baadiyaha jooga ee abaaraha dishay ayaa xoolahooda qasab loogu soo qaaday waxaan zaki ahayn oo canshuur ahayn infaaq tilmaamaya ahayn isbaarada ahayn bal lacago qabiilada laga qaado oo baad ah lacagahaas marka uu qaadayo tirada badan leh magacyada tirada badan lah muxuu ku sameeyaa waxba kuma dhiso wuxuu ku soo gataan qaraxyadii iyo hubkii iyo rasaastii waxay ku dilaan haldoorkii bulshada ku dilaan waxay ku qarxiyaan ceelasha ay ku qarxiyaan shacabka ay isku qarxiyaan waxay ku dilaan maxay ahayd culimada ay ku dilaan masaajidaha dadka ugu dhex dilaan wadanka ayay waxay u diidan yihiin inuu nabad iyo xasilooni oo helo marka isagoo waxaas oo dhan sameynayo lacagahaas tirada badan qaadayo isla markaana bulshadii waxba horumar iyo waxba u sameynay bal inuu ku laayo mooyaane oo ku qarxiyo mooyaane oo maanta qarxiisa ugu dambeysay labada gaari ay ugu tala galeen lacagaha ay ka soo qaadeen shacabkii ay rabeen hubka ku soo gateen iyo gawaarida ku soo gateen qaraxyada